warwadna habowday dan midigta kula helo hilbahaaga waan karin. waqtiyadii u dambeeyay waxaa aad u soo xoogeysanayay xiriirka ka dhaxeeya wadamada Eritrea iyo Soomaaliya. dhawaan waxaa wadankaasi socdaal ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa kamid ahaa in wadanka Eritrea ay Soomaaliya ka caawiso hanaankan dimuqraadiyadda. haddaba Titore ma la dhihi karaa Eritrea waa wadan ku habboon inay Soomaaliya ka caawiso arrimahan? waa wax la yaab leh oo ka yaabinaya dadka la socda ama ka warqaba waxa ka socda Eritrea gudaheeda. Eritrea ayada oo uu diiday ninka jooga meesha kaliya taliyaha ah in cilmi baaris laga sameeyo wadanka oo dadka mutacalimiinta ay soo galaan iskoolarada daraasaysa ayaa haddana taasi ay ka maanacin oo ay dibadda ka qoraan oo sanad walba bogaaga laga soo saaraa wadanka sida uu u shaqeynayo iyo meeshuu marayo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa. waxa yaab ah inay ka soo cayaaceen wadanka in badan oo kamid ah ajnabigii jaamacadda Asmara wax ka dhigay halkan ay joogaan ayagoo soo kala orday. waxay ka soo yaaceen waxay tahay repressionka meesha ka jiro inaan dadkii aysan xor u ahayn fikirkoodii cabiri karin cilbaaris sax la sameyn karin wadanku iska noqday wadan loo wada macamleynayo SSF work. wadankan xukunkiisu ku daahay muddo 27 sano ah ayuu Eritrea fadhiyaa ilaa 93 in Eritrea ayaa Soomaaliya 10 ka baranaysa oo doorasho si loo dhigay ka baranaysa macnaheedu waxa waay waxay ka baranayso doorasho ma aha, waxay ka baranayso dimuqraadiyad ma aha, waxay ka baranayso waa diktatoriyad, waxay ka baranayso waa gumaad, waxay ka baranayso waa dadka la laayo, waxay ka baranayso waa isla cuno. laakiin nasiib wanaag Soomaaliya Eritrea ma aha. Soomaaliya Eritrea kala ma aha oo dadka la duuleysan kara ma aha. Soomaaliya waa dad indha adag, waa dad soo taagan dawladnimo sax iyo cadaalad la yihiin mooyee. Soomaaliya Afrika dadka ugu badan ee ummadaha Afrika loo hanweeyay ku jiraan ayagii Hawsaha Nigeria iyo dad loo hanweeyay oo garasho badan oo waxgaranimo badan oo ganacsi badan oo dhaqaale sameyn og oo dad ku dhaxmilan og. dadka Soomaalida Afrikadaas markay tagaan meelaha tagaan oo dhan fiiri ayaga hormuud ah dhaqaale iyo siyaasad dhinac walba ummadaha ay la macaamilaan. markay Kenya galeen, markay Ethiopia caloosha u galaan, markay xagga galaan afarta u dhawaadaan ayaga ogaan ah meel walba tagaan haday socdaan oo Afrikadaas dhex tagaan meeshay tagaan. marka ummad si sahlan nin u qabsan karo muddo isaga hin kara ma aha, mana la haysan karo, waa ka dhidhinayaan. marka Eritrea guud ahaan haddaan kaaga warramo mutacalimiinta darista hadda waxay ku tilmaamaan xabsiga kor ka furan wax noocaas ah ayaa lagu tilmaamaa. wadan waa wadan police state ah oo dadku aysan dhaqaaqi karin. albaarista u dambeysay sanadka horena waxaa lagu tilmaamay 3 wadan ee adduunyada ugu badan ee qaxootiga ka soo baxaan inay kamid yihiin dadkuna kaga cararayo dhibaato kali talisnimada ninka meesha jooga ee dhalisay ku saabsan. waxa loo yaacaya ay tahay inaan meesha dimuqraadiyad jirin, sharci jirin, sharci iyo shuruucda jira uu yahay kaliya ninkan wuxuu leeyahay oo kale.